السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي كحرن فاتوش فاميلي يفاتوش channel لبضبط سو دوان waxaan rabaa maantay asxaab badan oo badan maasha Allah horta maantay congratulation lottery waa furmay official website waa la buuxsan karaa marka waxa dhacday asxaab baa isoo wacaysa qofka mataqaan aniga mashquula ahay teleefankii aan shaqada ugu talagalay baa asxaabta soo wacaysa coodad baliis naga caawi waxa weeye marka waan jeclahay inaan wax kasto aan anigu aqaano idinkana heshitiin aqoontiin nooxaasino wax kasto ilaahay baray idinkana inaan ku shubo idinkana aan sheego wayga go'aantay community-gayga aan caawiyo markasta wixii aan aqaano marka maanta waxaan go'aansaday inaan inii duubo sida loo buuxsado live waa hadda computerka isla tagaynaa live ayaan inii tusayaa meesha laga bilaabo iyo meesha xaaladdu ku dhamaato waxyaalaha qaarkood waxaa laga yaabaa inaan ka skip garan karinin laakiin midda ugu muhiimsan oo koowaad application-ka haddii aad ka gudubtay ay dhag tahay baa inii tusayaa oo inii waxaanaya meel kastaa joogto daawo walaalkaa usii gudba cajaladaas aan arko 10,000 iyo ka badan ayay daawatay yes promise qofka daawada qof kale because dadka dhan baa raadinaya oo raba marka waa inaad tusaa idinkuna asxaabta usii gudbiya si ay u raacaan ay u daawadaan haddaan bilaabanayna sheekada marka عاميشة كحرن فاتوش فاميلي أونلاين ستور سو دوادا waxaan inay haynaa daahiyo aad iyo aad u qurux badan wiikasta imaada kalar kala duwan kalarkii ku cajibiya waxa hubaala inaad ka helaysid Fatush Family Online Store kaas oo aad dalabkaaga ka soo dhiibin kartid taleefanka shaashada ku qoran ama Snapchat-kayga sidoo kale haddaad degantahay Twin Series-ka nawaaxigeeda waxaan sameeyaa free shipping free delivery ayaan sameeyaa haddii aad degantahay 50 state-ka Americana waxaan sameeyaa shipping baan sameeyaa taleefanka waad soo wacaysaa oo orderkaaga ayaad place gareysanaysaa samaysanaysaa daahidaada waxay kuugu imaanayaan 3 to 4 days haddii ilaahay raali ka noqdo soo wac numberkaas si aadan uga qadin daahiyada loo bagay oo quruxda badan leh oo ay hayso Fatush Family oo aad ka adeegin kartid adiga oo gurigaaga jooga laguguna keeni karo adiga oo gurigaaga jooga oo meelna aadin asxaabtu waa ku mahadsantihiin macaamiisha ugu xiran soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada waxaan sameynayaa waxaan kiciyay Google hadda waa aragteen Google-ka Soomaaliya meeshaan ayaa waxa sameynaysaa waxa ku qoraysaa DV program asagaaba soo saaray ma arkay waa meesha saxda DV program.state 2023 ma arkaysaa 2023 because mid kasta wuxuu leeyahay 2021 22 mid kasta la buuxsan jiray kan waa midka 2023 lagu baxay saa marka ugu dhufatid waxaad ku dhufanaysaa haddana electronic diversity visa program Department of State waa inaadan website-yada qaldan gelin website-yada qaldan waa ina dhacayaan information-kiina ee inka xadayaan midkaas ugu koreeya aad ku dhufanaysaa meeshaan ayuu ku soo saarayaa electronic diversity visa program welcome ku dhahay uu ku sharaxaya wuxuu ku dhahay our State Department website for the 2023 diversity visa program or DV loo soo gaabay 20 is now open already. The entry submission period for the DV 2023 is from alwada saacada lagu sheegay on October 6 2021 ilaa wuxuu xirmayaa November 2021 waa hadda bisha 11 the entry form will only be available for submission markii hadda kale sidaan kale uu diyaar yahay oo aad dirinaysid bis buu diyaariyaa mar kale lama furo waxa lagu yiri after reading the instruction click begin alwada marka instruction-kan akhriisi kadib ku dhufo bilow marka hore instruction-ki waa kan instruction-ka wuxuu ku tusayaa waxa laga rabo muxuu ku leeyahay instruction-ki saana u raacay photo instruction markuu ku dhufatid wuxuu ku tusayaa photo-da noocay tahay laga rabo ayuu ku sheegaya marka muxuu before beginning the entry process verify that your picture for any dependent fully comply with the DV entry photo requirement before aad furina lagu aadan waxaynin fadlan fiiri baa lagu inta photo example lagu tusaya fiiri qofka ilmaha ama ku buuxsanayso ilmaha oo dependent-ga adiga kula jira ama adiga
sawirkiina inuu yahay midkii la ogolaa marka haddii waxa lagu your case will be disqualified al wiri ma lagu qaadan doono haddii waxa lagu if you submit a non compliant photo haddii footooyinkii mid aan ahayn aad ku soo dirtid oo photo qaldan oo deeb qof intuu hadda picture iskaga soo tuuro meeshiisa iskaga dhexri jiray waxa lagu yiri waa lagu disqualified ata ma helaysid al for example waxaa la yiri for example of acceptable photo click here the bottom al wiri below inta fiiri baa lagu yiri footooyinka la ogol yahay oo waxa marka meeshaas photo example ku dhufto wuxuu ku sheegayaa photoda laga rabo sawirka laga rabo al wiri marka waxa dhana inay akhrina inta waa begin entry waa u jeedin soo meeshan waa oo green ka ah laakiin hoos baa in waxbaan rabaa inay akhriyo kale maxaa dhacaya marka waxa sameynaysaa inta waxay ku tusayaan check status kan oo hadda inta ah waa meesha hadhow ka check-gareysan doontid waxay ku sheegayaan waqtiga aad check-gareysan kartid confirmation number-ka waxa lagu yiri haysaa lagu yiri ilaa laga gaarayo sanadka 2020 September 30keeda uu ku shaqeynaa marka hadda waxaan ku dhufanaynaa taas kale mar dhan baa in sharaxi doona in tusi doona laakiin tan hadda intrigan bilaabayna hadda intrigi baan ku dhuftay ma arkay marka hore waa is verify gareynaysa meeshaan waxaan xarfahan aan rabaa inaan qortid haddaan qoraya waxa weeye xarafku waa 4 b iyo v iyo b iyo e 6 iyo marka ku dhufatay magaas waa ina is verify garaysa horta bini aadan ina taa lagu fiirnaa ma faham waan soo galnay marka haddaan soo galnay application-ki part 1 al wiri part 1 ta waxa waa information-ka ugu hore entry information baa dhahaa meesha waxa ku qoraysa last family name dadka wadankaas jooga waxa laga yaabaa inaynan aqoonin last family name-ka waxa la dhahaa awowgaaga magaciisa waaye aabaha maaya waa awowgaaga magaciisa magaca dhaxa waaye weeye meeshaas markii lagu dhaa last ama family name waa awowgaaga waaye awowgaaga adiga awowga ka bilaabaysa awowahaaga magaciisa inta first name maxaa waaye waa adiga magacaaga meeshan uu kule no first name ka hooseysan first name melihi adoo dhahay waay oo magaca awowahay bisaaba leeya camal oo kale markay middle name kan ayaa aabahaaga noqonaya marka ujeedada America saasa laga isticmaala wadamadan waa first last name ka oo awowgaha first name ka oo adiga ah middle name ka oo ah aabahaaga inta maxaa la two gender lagu dhahay genderka male baa tahay mise female male-ka waa ninka female-ka waa gabarta ma fahmaysaa gabarta waa date of birth meeshaan waxa waaye maantiga waaye meesha ugu horeysa waa bisha kan ku dhaxda waa day-ga maanta aa ka dhalatay yeerka waa sanadka dhalatay waa ina intaas ba taqaana city where you were born intana maxaa la imaada siriga aa ku dhalay siriga waxa waaye kaba soo qaad siri yaa noqon kara hadda adoo dhahay waxaan ku dashay Hargeysa adoo dhahay waxaan ku dhashay Boosaaso adoo ku dhahay Muqdisho ama saas siriga meeshii aa kaga dhalatay Soomaaliya waa yaani big Soomaaliya waa siriga waxa meeshii magaaladii aa kaga dhalatay meesha hadaa ku dhufatid birth city unknown hadaa ku dhufatid ka hooseysan meeshan ku dhashay ma garan kara waay baadiyan ku dhashay baadiyana magac ma leh kama soo qaad waxa tiri country aa lagu dhahay tan waxa country where you are from inta camal kale country-gi aa ka timid waay wadankii aa ka timid you know meeshaas waxa ka dhex dooran inta waa aragtaa Soomaaliya aa ka dhex dooranaysa wadanka aad ku dhalatay oo Afghanistan baa ay galaba wadanka aad ku dhalatay waxa are you claiming eligible based on the where you were born meesha oo meesha aad ka timaaday country-gaaga aa ka timaaday wadanka ku dhalatay Soomaaliya ma dadka oo loo ogol yahay inay imaadaan yes or no labadaba waa dhigi kartaa yes if you said yes or no you must enter the country from which you were claiming eligible wadanka aad joogtid oo ama yaani leedahay wadankan oo maxaa la dhigi jiray aan ku dhashay waa loo ogolyahay dadka imaan kara meeshaas ay ku dhaheen wadamada imaan kara oo area-yinka waxay lagu dhahay intana waa passport ka waay passport in order to submit an entry for the diversity visa program you must currently possess a valid and expired passport alura waa inta haysata passport aan dhicinin from the country of the nationality
unless except exception kan wuxuu galayaa dadka oo laga ka soo qaado wadankooda dagaal ka jira ama waxba ka jira ama wadan maba qabaan you know meeshas waay meeshas hadda inay calaamadey ma arkaysi meeshas waa wadanka aan qasab ku ahayn ina passport marka inta hoostiisu ku qodran yahay ina passport exception ka dhihi kartid inta marka passport information marka loo dhahay waa inta sidii hadaaya ay soo gelisay passport magaca kugu qoran magaci hore waa inay siiyaan last name first name middle name intana passport number ku qoray passport number ka soo ma arkay inta passport waxa waa bishii passport oo bisha ku passport expiration kiisa waa laga wadaa bishii daygi yeerkii passport la soo saaray marka waxa xagaas ka arkaysa waqtiga uu dhacayo passport intuu waqtigu dhacayo intana maxaa waaye meesha passport laga soo saaray waay meeshana waa meesha passport laga soo saaray waaw I'm not required to submit a passport information because I am mujeedida meesha taatreed waa ka yeelay because waxay dheen aniga qasab iguma aan inaan passport meesha aan galiyo because stateless no nationality ma bilihiba meela u dhashtay dhahay xagaas gelinay waa acceptiga kuwa ah waxa lagu leeyahay communist control can't unable to obtain a passport from the government wadankeena waa la haystaa ma haysto meelaan passport ka soo baxsado oo passport ka keensado passport requirement intana maxaa waaye waxa ka wave gareeyay oo inta laga rabin ku sheegay homeland security ga wadankan ayaa ka wave gareey wave waxa la waa qofka laga wave gareey oo liidaa adiga passport laga ma rabo ma fahmaysi intaas soo gelisa Soomaha waxa intana waxa lagu dhahayaa link to instruction a photo example page lagu dhahay inta passport meeshana ka juus gareysanaysa I mean photo inta ku hayne new photo dooro meeshaas labadii waxay kale mailing address kan waxa waaye optional care of the optional ka yani qofka lagu hagaajinayo laga wada mail address ka soo qaad hadii aad meesha aad deganta address haysatid address ka gelinaysa farastiga waxa laga wada in care of waqafta oo ku hagaagsamayo meeshana waxa waaye address street ka waa address ka wadada numberkeeda waaye intana waa siriga town ka magaalada iyo siriga waaye intana waxa waaye zip code ka hadii code oo xaafadiina lagu aqoonsada ee leedahay wadanka oo ku yaala addresskaasi hadee intan maxaa lagu dhahay maanta xagee ku nooshahay country where you live today maanta adi ka soo qaad wadan Soomaaliya oo dhalatay Kenya degantahay Kenya joogta marka waxa lagu leeyahay sheeg meesha hadda ka soo buuxsanaysid inta phone number laga raba optional marka lagu dhaho optional ka hoos qorso maahay optional waa iska deyn kartaa waay intana email address waay email address inay ka hayaan waay first email address gariga lagu leeyahay inta email address ka confirm garee lagu dhahayaa intana what is the highest level of education you have achieved as of today waxa lagu dhahay maxay tahay waxbarashada heerkaaga xagee gaarsiin hadda xagee gaarsiisan tahay primary school only master high school no degree high school haysta degree ma haysta yani high school aan bartay ma haysta shahaadada high school degree haysta maxaa la dhahay some university haysta university degree haysta you know gali waxbarashadaada ka juus gareysa meeshaasi what is the current what is the meesha mujidu hadda tick aan siinayo what is your current marital status marka loo dhaw maxay tahay xaaladda guurkaaga hadda unmarried maanta meesha dadku u sheegaya waa kanaya hadda dhageysta meesha inii sheegaya waa waxa lagu dhahayaa meeshana shay unmarried waa ma guursan waay tana waxa waa married and my spouse is not a US citizen or US lawful permanent resident inta married ahay xaaskayga ama xaas ninkayga kuma noola America yani citizen ma ahan mana lolaha barke waxa la inta waa ku kulli waa lagu aqriyaa married spouse US citizen married ahay xaaskayga ama gabwiidkan qabay wuxuu jiraa wadankaas u dashay US citizen waaye ama lawful permanent resident waa qofka haysta green card-ka waan furay ma qabanin widow ahay
ولا قد انتي legally separated ولا يعني واكلة تجني أو يعني ما اسفرنين لكن لو ميلان كريتشوجنا انت مركي اسبوز جلس مركدي انت في يا مركتري مارد وحال يقول انت اسبوز information على قولها قلي نينكاغا أما ناكتادا information كيد قلي على قدا إنتنا محل قدا number of children ما قل الموضوع هيستضد بوحي يسوي دين ولا عليه ملو قلي هي جبر أما المولي أما حاسلي إنت محل يجري أي بحثة yes والجو قلي number of children الماء هي ستة وقواس على قدا مركا أنت continually almost you are done almost you are finished بيتك قدام بيه برينتجريس I hope أصحابته أنا عاوية وأنا تصي application كسيد لو بحث أنا هذا هدي أتراعد سيد عن كل شيء وحهو على أنا بحثن كرتكلي على قفنا وبهنن وحيني رتشينا يا أنا ضد بدن أيضا إن شاء الله غير إني تهاي أنت كوجولي ستين هدي إلهي إدمه وفتش فملي أو كلها وأكو مع سنتاي سيد عدنا وحرنتاي مركزتنا لا شير جرى أصحاب بدن because أصحابته يكفى إذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.